عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خيارته سود هذا ومركله وبرنامج كله iyo Kista TV. barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxa uu ku saabsanaan doonaa laba case oo uu horgeystay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump maxkamadda ugu sarreysa dalkan Mareykanka ee US Supreme Court-ga. labada case oo midna uu ku guuleystay saacado ka hor midna uu ku guuldareystay 2 maalin ka hor. waxaan idin kala sheegi doonaa insha Allah taala labada case waxa ay kala yihiin iyo outcome-kii ama natiijadii ka soo baxday labadaas case-ba. aan ku bilaabay haddii aad nagu cusub tahay don't forget to subscribe to the channel. haddii aad hore noola joogtayna like and share the video insha Allah waa idinka mahad celinaya. waxaa saacado ka hor soo baxay go-aankii ay gaareen maxkamadda ugu sarreysa dalkan Mareykanka ee US Supreme Court-ga kaas oo ay ku ogolaatay maxkamadda in laga xayuubiyo dadka ka soo jeeda waddanka Venezuela oo iyagu gaaraya ilaa 350,000 oo qof in laga xayuubiyo programkii uu siiyey madaxweynihii hore ee Joe Biden oo ahaa magangelyo doonka iyo TPS programkii ku meelgaarka ahaa si temporary ah dadkaas uga difaacayay in la tarxiilo sidoo kalena u ogolaanaya inay ku qaataan work permit-ka warqadda shaqada ayaa waxaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ay ogolaatay in dadkaas laga xayuubiyo. waxaa ku joogay programkaas kana soo jeeday dalka Venezuela ilaa 600,000 oo qof. dadkaas ayaa waxaa ka hor istaagay inuu mar hore ka hor istaago madaxweynaha dalka inuu tarxiilo. waxaa ka hor istaagay xaakimada hoose ah ee district court oo ku taallay stateka California taas oo u diideysay madaxweynaha in uu dhaqan geliyo balaankiisii ahaa in dadkaas uu ururiyo oo dalka Mareykanka uu ka tarxiilo. waxaa haddeer Supreme Court-ga ay u ogolaatay go-aankaasna ay ka qaadatay in dadkaas la tarxiili karo programkana lagala noqon karo. programkooda ayaa waxaa loogu talagalay in uu dhaco bisha October sanadka soo socda 2026 laakiin haddeer waxay ku guuleysteen in xilli ka horeeya oo haddeerba ah loo ogolaaday in programkaas ay kala noqon karaan dadka ka soo jeeda waddanka Venezuela. waxaa la sheegayaa oo lagu boorinayaa in dadka Venezuela ka soo jeeda oo haysta TPS-ka programka ah in aysan welwelin weli maadaama la ogolaaday bay yidhaahdeen haddeer in aysan welwel isku beerin ay ka warsugaan programka sida uu u shaqayn doono iyo waxa ay ka bedeli karto go-aankan maxkamadda sare ka soo baxay haddeer. waxaa sidoo kale welwel iyo walaac ka muujiyey programkan oo ku sheegay mid ibni-aadamnimada ka fog. qofkii iyaga matalayay oo lawyerka u ahaa kaasna waxa uu ku sheegay waa barkii ugu horreysay dalka Mareykanka dad intaas cadadkooda uu dhan yahay lagala noqday TPS programkii ama temporary protected status programkii ahaa ayuu ku sheegay. marka arrinkan waa guul usoo hoyatay sida ay sheegtay haweeneyda qaabilsan Homeland Security-ga Kristi Noem dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku sheegtay guul usoo hoyatay madaxweynaha iyo qorshayaalkiisii uu ka watay arrimaha immigration-ka. waana markii ugu horreysay taariikhda dalka Mareykanka ay arrin noocana ay dhacdo ayaa la yidhi. waxaa marka kale oo aan rabay case-ka uu ku guuldareystay inaan idin sheego waa case-kii la isticmaalay 1798 taas oo ahayd sharciga loo yaqaanay Alien Enemy Act loo yaqaanay. sharcigaas ayuu wuxuu rabay madaxweynaha in uu horay u isticmaalo waxaana uu ku saabsan yahay marka wadamo dalka Mareykanka ay ishayaan dadka ka soo jeeda oo citizenska u ah oo dhalashada ka haysta wadamadaas ayaa waxaa loo isticmaalaa in iyaga oo aan maxkamad la marinin sharcigan inta qofka lasoo qabto hadduu wadamada ay Mareykanka iska soo horjeedaan oo dagaalka ay kula jiraan uu ka soo jeedo qofka inta lasoo qabto isagoo aan maxkamad la marin in la deport gareyn karo ama la tarxiili karo. sharcigaas ayaa marka waxa uu damcay inuu madaxweynaha uu boorka ka jafo dhowr jeer oo hore waxaana u diiday judge ama xaakimo hooste oo district court-yada federaalka ah. marka waxa uu la aaday case-kan maxkamadda ugu sarreysa ee US Supreme Court-ga taas oo keentay in jimcihii laga brogareeyey oo laga joojiyey madaxweynaha in uu
sharcigan intuu boorka ka jafo uu dadka u isticmaali karo soo galootiga ah derbi kaboodka ah gaar ahaan wadamada sida la sheegay Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela kuwaas ayuu si gooniya madaxweynaha targetka ama isha uu ugu hayaa dadka wadamadaas dadka ka soo jeeday ayaa wuxuu rabay in madaxweynaha uu isticmaalo sharcigan oo la isticmaalay 1798 oo la yiraahdo Alien Enemy Act sharcigaas ayaa waxa ka hor istaagay maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka so labadii case oo uu geystay madaxweynaha mid waa uu ku guuleystay oo wuxuu ahaa in maanta loo ogolaado in uu kala noqon karo TPS programka oo uu bixiyay madaxweyne Biden oo dalkan ay ku joogeen ilaa 600,000 oo Venezuelan ah in uu kala noqon karo kan kale oo ahayd in uu sharcigan isticmaali karo dadka isagoo aan maxkamad marinin intii la iska qabto in la iska tarxiili karo gaari ama diyaarad iska saari karo oo la geyn karo dalkoodii arrinkaas midna waa ku guuldareystay madaxweynaha midna wuu ku guuleystay laakiin asaga iyo haweeneyda u qaabilsan Homeland Security-ga iyo immigration advocates iyo xertiisa kale kula socota arrimahan aad iyo aad ay farxad iyo reenreen uga muujiyeen guushaas ay maanta ka gaareen maxkamadda ugu sarreysa dalkan Mareykanka intaas ayaa rabay inaan ka dabageeyo oo breaking news ahayd war degdeg ah waa idin salaamahayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh don't forget to subscribe to the channel like and share video insha Allah